dhabaradna waxay tiri labadani waa murmeen waxaan ku murmeen qolkan soo baxay dhabarad shutaansaha iyo maxay saxa waa jiifaa iyo hada jiifanaysid naatana wata meel tiistamale ada dudulaadan aatana soo dhashay amal Jibriil Xasan Cali waxa uu ahaa askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka xalay ayaa waxa dilay saaxiibkiis oo isaguna ka tirsanaa militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwooda gaarka u tababaran ee gorgor sida naloo sheegay Jibriil ayaa isagana ka tirsanaa sida naloo tilmaamay guutada Oktoobar ee ciidamada xoogga dalka waxay ahaayeen saaxiibo aad isugu dhow oo wada qaata waqtiga ugu badan waxay ahayd xilli habeen ah kolkii askariga dilka geystay uu yimid qol uu jiifay Jibriil isaga oo ay dhex martay sheeko yar oo la xiriirta in askariga wax dilay uu si gaar ah ugu baahan yahay qolka askariga wax dilay ayaa la tilmaamay in ay la socotay qof dumar ah isaga oo ku wargeliyay saaxiibkiis inuu si gaar ah ugu baahan yahay qolka isla markaana uu ku shukaansanayo gabadha markaasi la socotay balse Jibriil ayaa ka biyadiiday waxaana dhacay falka dilka ah wararka qaar ayaa sheegaya in qolka ay wada seexan jireen oo xilliyada nasiinada ay ku qaadan jireen askariga la dilay kan dilay iyo yar kale oo ay saaxiibo ahaayeen warar kale ayaa tilmaamaya in qolka uu deganaa qof kale balse labadan askari ee dilku ka dhaxdhacay ay u imaan jireen in ay ku qaataan nasiino oo kaliya dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday xaafad lagu magacaabo Miijiska oo ka tirsan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir wiil ay walaalo yihiin askariga la dilay oo diiday in muuqaalkiisa loo adeegsado warbaahinta ayaa Shabeelle uga warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo sheekada dhex martay walaalkiis iyo askariga dilay nin walaaltayo hay dhacdaas waxay dhacday in xalay abaari 3:20 meelaha 3 bar laba nin oo saaxiibahayn oo ciidanka dalka tooda tirsan military ah marka hal xaafada wasaxaynaya ninkan marka xaafadna dad tidna weydiina xaafada waxay dhaheen dhabaradna waxay tiri labadani waa murmeen waxaan ku murmeen qolkan soo baxay dhabarad shutaansaha iyo maxay saxa waa jiifaa iyo hada jiifanaysid naatana wata meel tiistamale ada dudulaadan aatana soo dhashay amal intaas sheekada aan naata xogta aan helnay waa gartay guriga jiifay markaa guriga asaa jiifay soo jiifo oo joorisa u jiifay naftu u baxdana aan rooturnay waa gartay umida waa gartay marka guriga wada deganaayeen mise hal qolada seexayeen saddexdooda mid oo shacab oo saaxiibkooda u jarnaa qolka labadaanna marka ewl bay intuu shacab saaxiibay jir saddexdooda marka ciidan qadan asna waa soo heshiiyeen soo joogina saas saaxiibku hayeen marka nishid loo qoomeen in ay saaxiibahayeen oo shimil hayeen walaala هذا ما شاء الله انت مرعايا ويلك ستامو جبريل حسن على جبريل حسن علي الله ويلك حسن علي الله او طماطوس بكتيريا adina anoo walaal maaqtin meedana okay arintan ayaa waxay fajac ku abuurtay bulshada ku nool xaafada ay wax ka dhaceen iyaga oo dadku ay tilmaameen in filanwa ay ku noqotay dilka ka dhaxdhacay saaxiibadan aadka isugu dhawaa kana tirsanaa ciidamada xoogga dalka Zakariya Axmed Muuse TV Shabeelle مقدشو.